maxay maalqabeennada Yuhuudda lacag badan ugu bixinayaan Ilhaan Cumar? Kooxaha garabka midug u janjeera ee gacansaarka la leh Israa'iil ayaa waxa ay bartilmaameedsanayaan xildhibaanad Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kana soo gasha gobolka Minnesota sida uu daabacay wargeyska HuffPost. Ilhaan Cumar ayaa meelaha fagaaraha ah waxay ka dhaleeceysay dowladda Israa'iil waxayna ka mid tahay xubnaha magaca leh ee horumarka ka sameeyay Koongareeska. Anton Melton oo ah 47 jir waa xiriir ilaaliyaha magaalada Minneapolis waxa uu doonayaa inuu booska ka riixdo Ilhaan Cumar oo waxa ay isreebka doorashada xisbiga dimuqraadiga ee xilka Koongareeska ku tartami doonaan Ilhaan. Ninkan ayaa bishii May oo kaliya waxa loo ururiyay in ka badan 1.5 kun oo dollar. inta badan lacagtaasi waxay ka imaanaysaa gudiyada siyaasadda ee ka soo horjeeda in cadaadis dheeraad ah uu Mareykanku uga yimaado dowladda Israa'iil. Labada koox ee kale ah sida kooxda gacansaarka la leh Israa'iil, Mareykanka iyo Norway ayaa waxa ilaa waqtigan la joogo Melton siiyeen in ka badan 450 kun oo dollar. sida uu daabacay wargeyska The Times of Israel, xildhibaanad Ilhaan Cumar ayaa saameynta Sacuudi Carabiya ee maamulka Trump waxay ku xiriirisay Israa'iil iyadoo sheegtay buu wargeysku leeyahay in labada dal ay dhaqaale ku bixinayaan sidii ay ku gaari lahaayeen waxa ay iyagu doonayaan. waraysi ay siisay wargeyska Sunday Times ee UK ka soo baxa ka hor inta aanan la daabicin buuggeeda, taasi waa sida ay Mareykanku u eg tahay safarkayga qaxootiga ilaa xildhibaannimada Koongareeska ayaa waxa ay u badan tahay inuu sii kicin doono xiisadda u dhaxaysa Ilhaan Cumar iyo taageerayaasha Israa'iil. Rashida Tlaib iyo Ilhaan Cumar. tartanka Ilhaan Cumar ay ugu jirto sidii dib loogu soo dooran lahaa ayaa waxaa walwal badan ku haya kooxaha gacansaarka la leh Israa'iil iyo maalgeliyaasha kuwaasoo fursad cusub u arka tartankan kaas oo ay doonayaan inay ku soo bandhigaan awoodooda kadib markii dhabarka loo saariyo guuldarro yaab leh. sanadkii hore ayaa xukuumadda Israa'iil waxay ku dhawaaqday inay joojisay socdaalka Ilhaan Cumar iyo Rashida Tlaib ay ku tagi lahaayeen Falastiin iyo Israa'iil. waxaa tani ay ka dambeysay kadib la tashiyo uu sameeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu kaasoo amray in la joojiyo socdaalkaasi. madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa dalbaday is-hortaag in lagu sameeyo Ilhaan Cumar socdaalkeeda, sidaasi awgeed waxay warbaahinta qaar sheegayaan in codsigiisii loo tixgeliyay. qoraal uu Trump soo dhigay Twitterkiisa ayuu ku sheegay in labadan gabdhood ay yihiin kuwa wax ka sheega oo neceb dalka Israa'iil. Rashida Tlaib ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Falastiin waxayna golaha Koongareeska Mareykanka ka soo gashay gobolka Michigan halka Ilhaan Cumar oo Soomaaliya ka tagtay ay ka soo gashay gobolka Minnesota.